كوي سياشكي قبت هكذا يقول قبتي ويقول والله ما لك هذا الشيء كيف قبت قبتي ويقول سيدي حال كاو ما كنا عليه وحالكيgu wuxuu ahaa inaanu ka aragno caruurtii kala baxno meesha qofkii aan gaadiid badan iyo haysan gaarigii yaraa iyo wixii meeshii wax yar geli karayaan waxaanu saaraynay in baasta iyo bariis iyo sokor iyo suuxun ba soo toosteen waxaan see maya bishii December 29keedii ayaa iyadoo magaalada iska habeenadii wax lagu laalaayo oo cabsi iska jirto ayuunba laba gaari oo NSS lahayd wado taleex ka tagi jirtay meesha qaadka lagu iibinayo Siinaa iyo meesha aad jirtay ayaa lagu dhuftay bazuka laba gaari baa la gubay dadna rasaas baa bilaabantay duurkii bay 12 iyo barkii meelaha sanqadha badi waa mal maqlay dadku dabeedna galabnimadii rasaas baa bilaabantay rasaasku iska socotay habeenkii iyana way soo galayeen iyana waa la leynayay iyana wax bay leynayeen laakiin qofbada maalin uu intuu ku soo dhawaaday ayuunba guriyii laga cararay oo markaa waxay noqotay caruurta uun seef garaysta dabeedna maalintii gaadhaan watay gaari Langaruusale baan watay nin nadayna soo miday walaalyihiin baa siiyay oo shirkad Shiinaha baa batay baabuur u dhiibtay ee qamti ugu dhacday marka gaari Langaruusale siiyay raashin badan iyo waxa caruurtu ay u baahnayd oo bank ku raray waxay yiraahdo dharkayga xataa waqti 13 qof loo saaray marka Muqdisho ilaa afgooye marayay dadka waxaad moodaysay xoolo beel ciliiriya dadka lugeynaya dadka marada intay ku xidheen dharkoodii iyo wixii ay qaadan kareen bay intay go ku xidheen gooy tuurta ku sitaan caruurtii labarka lagu sitaa magaalada ilaa iyo afgooye saasay dadku isu dabahay labada dhinac wadada labada dhinac يوم القيامة وحل كل النجوم بتلكره يوم القيامة وهتجي هبين ودي وهتجي عشان مقالة براوة ضد السهورية أنا قلت تغني لما كتغني وهتغني كسماية الحوجي تشوفني بالشمال سورانتي دي ayaa la yiri waxa dagaalkii wuxuu soo socdaa meel magaalada agteeda Kismaayo habeenkii waan guureynay waxaan tagnay xuduud habar waalid baan marnay meesha wadadii habar waalid baan marnay waa lugeynaysaa mada gawari baan wadanaa laakiin maxaan wadanaa waa 160 kiiloomitir Kismaayo iyo meesha aan tagnay waxaan soconay 4 subaxnimo ilaa 5 galabnimo أقول إلى هنا كيلومتر ولا صار إلا بهذا الموضوع لول كيما هو بابور أنت اللي بيكون مرتي روب مرتي تاير هو ولا الشيء قاري لون شري أظن أدو قاري أظن حق النواجد هلك النواجد ما أنت لأنه بات كواليسا شن يتواصل عن سؤالي صدق يطلع أما أفريق 8 ساعات يعني بقول إلى 1 كيلومتر السؤال حقتك المرة حدود هاي دولنا ما اللي إلى أمومي روالك الله بالبيرو ضدكي ضد بدن بارنا يعني قارنا بار وحيكون نقدين لوق يوم مريانو إثيوبيا الصومر هذول كان السؤال ضدنا وحيادين كينيا تعب بيسكاهد لبات بعبسي dadka badankiisu wax la'aan iyo xaalad xun bay xaalad aad u adag bay xagee ku gashay socodka yaa xagee ku gashay socodka ilaa iyo aanu Kampala ku galay
كمبالا ها نيروبي بس waxay sii joogay iyo aruurtii wixii aruurtii yareerada marka aan waday ilaa 8 jir ahayd 8 jir saddexdii ugu yaraa afartii ugu yaraa saddex ka mid ah waa dhaqtaro hadeer hey xagee joogay Denmark bay joogeen habar waalidna ma ka salaamay habar waalid madi waa dhaqtaro ma sha Allah nabad ku gash nabad ku galay ay dadkii ka qaxay daaroodka ahaa ka qaxay muqdisho waa tiro badno oo aad hawl dhibtoodaan laakiin aad bay u tiro badnaayeen haddana dadkii dambe ee dhulka ku hadhay way ka fiicnaayeen oo iyadoo dadkii aanu nafaqa darro iyo ku dhicin ayaa la socday deedna waxaa la helay waa la guray waa dadka ugu badan ee dhoofay ee Ameerika iyo Ingiriiska iyo meel walba sponsor iyo family reunion iyo waxa la helay dadkii dambe xiriyaha galay kuwa hore dhaamay marka waa la iska soo kabtay dhibaato laakiin waxay noqotay markii burburkii dhacay ee dadkii iska kala xarooday waddanku markaas u dumay marka dalkii waa burburay wamenuu limeshiisigu aaday aday Kampala ka dhacday goboladii waqooyi bari waxay dhaheen waa go'nay dhulbahanta waxay dhaheen qayb bay naga ahaayeen bal halkaas dul istaag markii anigu markaa horta Uganda joogay ay burcooyo ku shirayeen marka waxay ka duwaneyd tii ka dhacday Muqdisho iyaku waxay sameeyeen way joojiyeen ciidamadii SNMta berbere iyo waxay ku joojiyeen burco iyo Hargeysa iyo dad isxukun buu ahaa ay xagga dibadda isku xukumeen oo madax bay yeesheen oo waxay yeesheen wax baarlamaan u eego marka waxay awoodeen inaanay magaalooyinkii iyagoo dugaaga inaanay gelin way joojiyeen dadna waxyeeladii ay xagga ka dhacday way yaraatay marka laasanoodii ma ay soo aadin oo laakiin dadkii joogay bay wada hadleen oo waxaa la yidhi markaa laasanood way xidhxidhata oo waxay damay inay xagga usoo guurto garoowe ilaa booca ilaa garoowe baa la haabanayay marka iyagaa la hadlo waxaa la yidhi maxaa la leedihiin ma nabad baanu ka helaynaa waa la wada hadlayaa mise oo isku tashanaa marka waxay yidhahdeen maya nabad baa la helayaa cid noo soo diraan wada hadal leh meeshan imika la hadalhaye oog la yidhaahdo ayaa la isugu tegey dabeedna waxaa ka abuurantay in berbera haddana wafti iyo tageen dabeedna waxaa ka abuurantay in mar dambe burco waa tii lagu shiray marka dadku waxay leeyihiin iyaga qudhooda siyaasiyiintoodu goosashada kuma ordayn dadkii jabhadaha ahaa ayaa iyadoo burco lagu shirayo waxay yidhahdeen haddaydan ku dhawaaqin goonni isu taag meeshaan idinku gubayna aqalka lagu shirayo marka xaggeena waxaa ka joogay cabdulqani iyo garaad saleebaan iyo dad la socdo oo 40 oo ilaa 40 marka markii lagu dhawaaqay dowladani waxay ku tashatay mar dambe ha la isku soo noqday imika yeenan ka hadlin wax manay diidin manay ka hadlin laakiin 2-3 nin ayay dub ulo faqeen oo saxiix iyo ka sameeyeen oo isu taag oo noo golayo wax 3 nin in fact cabdulqani iyo 2 nin oo kale marka te Soomaaliya waad iska garanaysaa moogtay lagu soo moodiyo dhibaatooyinkii dhici lahaa waa lagaga baaqsaday laakiin niyaddii way iska sii kala jeeday iyaguna way ogaayeen
iyadoo niyadiisii kala jeedo ayaa dabeedna halakan waatii la abaabulay meeshii lagu yidhahdo Puntland 96 nin baa ka soo qayb galay isimadii oo dhan hal mid maahe waa ka soo qayb galeen halkan ka soo qayb galeen ma Cabdulqanigii xaggaa wax ka dhisay marka way dhibsadeen taa haddana ma ay suuroobin in dagaal iyo dhibaato abuuranto ma dhicin labada meeloodba waa la iska ahaa sababta loo ahaa waxaa weeye hogaamada kala fiicnaadee hogaamadan hadda berigii dambe iyo kuwii hore in Ibrahim Cigaal baa meesha joogay halkana Cabdullaahi Yuusuf baa joogay wayba wada hadleen marka laga bilaabo ogaalkayga 2000kii waa wada hadleen aniga markii igu horreysay 2000kii baan waddankayga ku soo noqday oo waqooyi iyo laascaanood iyo ma arag markaa Hargeysa ka soo degay laascaanood baan halkan waan imi 3 habeen baan u yiri Hargeysana 4 habeen baan u yiri markaa waxaa socotay waxaan ogaaday in laga wada hadlay dhulbahante Somaliland baa waa Puntland waxaa ka wada hadlay marka waa la dhexdhexaadinay markii hore sheekada waxaa bilaabay baa la yidhi nin masri ah sidaan maqlay maxamed cabdi cashaan halkan ku wareystay arrintaas ma jirta haaba igu yidhi oo xagee maraysa waa la hakay waa hakatay oo maxay u hakatay waxaa lagu heshiiyey markii dambe waxaa dhexdhexaadinayay hadalka isaga gudbinayay ninkii lagu odhan jiray Yuusuf Ashari in Ashari oo garanaysa in Ashari waqtigii dowladdii Cabdirashiid safiirka Mareykan waxaa u magacaabay cigaal baa u magacaabay aqoontaasaa jirtay ma ogtay ay isqiineen marka way sarkeen labadaba way ogolaadeen inuu fariimaha u kala qaado marka sidaa ku dhex jiray markaan anugu imi 2000kii markaan Hargeysa imi hudheer Hargeysa baa la igu sheegay marka wixii kale oo dhan markay hadalkii ku heshiiyeen waxay isla soo gaadheen waxay ku heshiiyeen in dhulbahante laga qaado istiftaa oo afti laga qaado deedna waxay ku heshiin waayeen annagaa samaynayna oo ay iminka naga mid yihiin iyo cid dhexdhexaad yaa samayso in Cigaal wuxuu yidhi annagaa istiftii qalqaalinayno samaynayna annagaa finance garaynayna annagaa Cabdullaahi Yuusufna wuxuu yidhi maye cid dhexdhexaad yaa samayso saasuu ku hakaday arrintaas arrin wanaagsan bay caqli baa shaqaynayay ma ogtay labadan nibadee laba nin waa arag ahaayeen ninkan ku dhex jiraana labadaba uu ah in Cigaalna safiir buu ahaan jiray isagaa magacaabayba oo isagaa Mareykanka u magacaabay berigaas markuu dhow maraa in Cabdirashiid guursaday xaaladdu saasay ahayd Siilaanyo markii uu yimi in Ibrahim Cigaal horta intaan ka bixin in Cigaal wuxuu yidhi ciidan Somaliland ah oo aan dhulbahante aan qortay oo laascaanood ka qorto ahayn iyo buhoodle oo askarta kale ee Somaliland tegi maayo dhulka dhulbahante meesha ta lagu wada joogay taasay ahayd markuu dhintay uu qabtay ninkii lagu jiray Riyaale ayuu wuxuu bilaabay inuu ciidan soo kiciyo xoogaa markuu 2 sanadood meesha joogay wuxuu dhintay 2022 buu dhintay 2003 ayuu sanad buu markaas ayuu ciidanka ama 2004 buu ciidan ka soo saaray oo ciidankaas ugu horeeya ciidan Somaliland oo dhulkan yimaada intii arrintaas dhacdayna shakigu waa jiray laakiin meesha waxaa yimi Siilaanyo nin siyaasi ah moogtay oo wax kala garanaya marka wuxuu ku wadi jiray tolan qabow intaas lagu kala fadhiyay markii magaalada laascaanood la wareegin 2007
intii ka dambeysay xiisadun baa taagnay dawaana tan halkaasay ku dambeysay berigii dhaweyto waxaanu aragnay ina ragan ka mid ahoo tobaneeya waxaanu aragnay ninka lagu yidhaahdo muuse biixi waxaanu u sheegnay arrinta somalilan iyo dhulbahante inay muddo dheer mucaqad ahayd oo waxanba way ka horeysaa sababtu waxaa weeye ingiriisku markuu yimi waddanka waqooyiga galbeedka soomaaliya markuu ingiriisku halkaa yimi 1985 qabaa'ilkii waddanka deganaa dhulbahanta maaha inta kale xataa warsangeli inta kale heshiis bay la galeen protectorate inuu ilaaliyo dhulbahanta waa diiday marka wuu qabsaday amarba kama qaadin waa diiday marka heshiiskaa dhulbahanta kuma jirin waxaan ku nidhi ilaa berigaa mar walba waxaa jiray carqalad aan heshiis lagu ahayn markii sanad dowlad lahaa isku israaci Soomaaliya ayaa afartii wasiir waqooyiga oo algaraadii ku jireen dhinacigaaliyo ayay yidhaahdeen qoladii intii isaaq ahayd aan risan garayno oo ka noqonno israaci algaraad wuu diiday iyaguna waa risan garayeen maxamed ibraahim cigaaliyo way risan garayeen kuwaas baanu sheegnay marka waxaanu nidhi sidan waxba ku socon maayaane waxaa fiican in la wada hadlaa ashir la qabtaa oo ayaamihii kacdoonku halka ka dhacay musabbix xagee kula kulanteen markaa hargeysa kula kulanteen imisa nin baa haydeen 10 yaa ka mid ahaa ragga baashe cali saane la yidhaahdo anigaa ka mid ahaa intee leegyahay dhaawaca soo kala gaaray labada dhinac iyo kalsoonidooda iyo inay wax wadaagaan maxaa saxal noqon kara waxa soo kala gaaray horta waa badan yihiin maba qarsoona labaduba waa badan yihiin waxaanan u malaynayaa waaga nabad la helo iyo daris wanaag iyo mooye wax isku darsigu inuu adag yahay kaasu inuu adag yahay baan hubo Soomaaliya waxay jirtay dalka waa ka goonay gaar baan dowlad gaar ah noqono Soomaaliya inteedii kale waa u jeedaa gobolkan waa aragtaa muxuu noqon karaa xal ereyga ugu dambeeya oday baa tahay muddo soo joogay maxaa Soomaali uga tagaysaa erey Soomaali waxaan uga tagayaa waxyaalaha Soomaali aan ka waaninayo ee anigu aan soo joogay waxa ka mid ah madaxweynihii Soomaaliyeed ee Afrika ugu qiimo badnaa dimuqraasi ugu fiicnaa ee doorasho ku fuula kursiga ee doorasho kaga degay baa waxaa lagu sheegaa ninkii lagula jiray aadan cadde waxyaalaha uu cajaa'ib ku ahaa waxaa ka mid ah miisaaniyaddii dowladda ma faragelin jirin ilaa anigu nin weyn baan ahaa intuu dowladda hayay xukuumadda ma faragelin jirin miisaaniyaddii la siiyey buu sanadka dhammaadkiisii lacag uga soo hadhay yidhi guri state house ku dhisayaa wax igu dara dowladda intuu warqad u qorto ka bariyey gurigii afkoodii ku dhisay ee wadiga saarnaa ee quruxda badnaa gurigii baana lagu xidhay isagoo aan wax dembiye gelin madaxweynaad ahaan jirtay baa kacaankii ugu xidhay guriga laftiisii ilaa isaga iyo cabdirisaaq iyo nin la odhan jiray cumar macallin oo ogaadeenha ayaa waxaan dowladda ahayn ku jiray dadkii la xidhay gurigii uu iska qabsado ku dhisay baa isagii lagu xidhay moogtay marka Soomaali waxaan ku oran lahaa waxay ku iminka nin kasta oo madaxweyne ah oo Soomaaliya ama kilinka joog ama xamar joog ama gobolada joog markaad u fiirsato habdhaqan maxamed siyaad lahaa in baad kaga arkaysa haddaadan qaarkood saddex wax ku arag saddex habdhaqan iyo haddaadan ku arag hal ugu yaraan horta hal habdhaqan waad ku arkaysa waxaan garan lahay madaxweynihii ugu qaalisanaa waxa mid ugu dayda loo waayey nin aadan cadde ku dayda waxa loo waayey oo kuwii ka dambeeya iyo iyagiiba isku dayanaya anigu waxaan odhan lahaa Soomaalida
waan ku odhan lahaa war ummadda soomaalidu waa ummad wanaagsan waa ummad firfircoon waa ummad dibadaha joogta waa ummad soomaalinimadooda iyo diintooda iyo jecel waxa kale wada madaxdee war madaxday dhibta ka daahaya marka kuwii qarannimada weyn la aamina oo madaxdu toostaa aad iyo aad badan